الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. maanta waxaynu ku guda gelanaa ama aynu akhrinaa casharadeenii inoo socday في هذا اليوم. maanta إن شاء الله تعالى waxaynu u leenahay cashar muhiim ah ama darsi muhiim ah oo ay ka mid yihiin casharadeenii hore aynu ku soo jirnay ee la dhihi jiray cuyuub nafsi, ceebaha naftu ay leedahay. sidaynu ognahay naftu ceebooyin fara badan ayay leedahay, sidaasoo kale kasoo horjeedkeeda waxay leedahay sifooyin wanaagsan oo fara badan, fadaa'il fara badan ayay leedahay. maadaama ay sidaa tahay, qofkii waxaa la doonayaa insha allahu tacaala haddii ceebaha uu ku sifaysan yahay, ceebaha xunxun ay naftu leedahay qaar ka mid ah hadduu ku sifaysan yahay, inuu iska tirtiro ama uu ku dadaalo in sifooyinka xunxun uu iska tirtiri lahayo ceebahaas. haddii uu ku sifaysan yahay kuwa wanaagsanna inuu sii horumariyo oo ka dhigo akhlaaq tagtay oo heer sare ama meel sare gaadhay, akhlaaq mar kastaba uu ku sifaysan yahay. tusaale ahaan, qofku markuu gees yahay haddana uu geesinimada ku sifaysan yahay, uu sii horumariyo, qofkaasu wuxuu sameynayaa xilli kastaba geesi buu noqonayaa, iyadoo balaayo dhan dhacasa haddana isagu waxaweye waa saakin, waxaweye waa qof xasiloon, waxaweye waa qof toosan, waa qof hadaladiisa iyo dhiiranimadiisa iyo go-aamadiisa ku toosan ayuu noqonayaa. sababtoo ah geesinimadii baa si farabadatay, waxay noqotay sajiya, khuluq sajiya, khuluq ku dheehan iyo akhlaaq ku dheehan oo mar kastaba aan ka foqeyn ayay magaranaysaa noqonaysaa. sida gacantaasoo kale noqonaysaayo, dee gacantaasu way kugu taalaa oo meel kastaba haddii aadid way kugu taalaa, ilaa la jaro maahaane oo si xoog weyn loo jaro maahaane, meel kastaba haddii aadid hadday balaayo oo dhan dhacdo way kugu taalaa. markaana akhlaaqda waxaa la doonayaa sidaas oo kale inaad ka dhigtid sida xubnahaagu ay kuu yeelaan inaad ka dhigtid ayaa la doonayaa. markaana dad fara badan baanan ceebaha xunxun macnaha aan garanayn, ama way garanayaan laakiinse ma doonayaan inay iska tirtiraan ama kuma dadaalayaan inay ceebaha xunxun iska tirtiraan. laakiin taas waxa weeye dee waa laga fiican yahay. waxaa la doonayaa qofku ceebta xun markuu isku ogaado insha allahu tacaala ama wixii akhlaaq xun ah inuu iska tirtiro ayaa la doonayaa. laakiin hadduu ku indha adeego, de waxa weeye waa meel xun bay ku dhigaysaa. sideedaba akhlaaqda xun ama shayga xun ah ku sifaysan tahay meel xun bay ku dhigaysaa, hamoodin in ay meel wanaagsan ku keenayso. haddii ay iska tirtiri weyd beri ma garanaysaa ayay meel xun ku dhigaysaan. waa aragteen dadka hadalka badan ee laga kari laayahay war aamus qofku markuu hadal bato oo meel kastaba uu ku hadlo, suuqa fadhiyada waxaan la weydiin waxyaalo kale, hadalkiisu iska bato, dee marka daba carabku meel khatar u gelinayaa kelmado fara badan oo hadhow uu ku qoomeynayo oo uu dhahayo bal maxaad u hadlaysay ayuu ku hadli doonaa. sababtoo ah qofkan isagaa akhlaaqda wanaagsan isbari waayey, isagaa hadalka badan ee maala yacniga ka tegi waayey, hadhowtana caaqibadeedii ayuu helay. ومن عيوبها اشتغالها بعيوب الناس عما بها من عيبها. maanta insha allahu tacaala waxaynu akrinaynaa ceeb aada iyo aada muhiim u ah, ceeb dadku fara badanaba ay ku sifaysan yihiin. qof adduunka kuma noola ilaa ceebtan uu ku sifaysan yahay, laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay qofkii isku dayi maayo ceebtan inuu ka fogaado, laakiin wuxuu sameynayaa isagiina wuu sameynayaa, qofkaana waxaa laga yaabaa inuu ku booriyo ama qofku ku arko uuna u arag waxweyn inuuna u arag ayaa laga yaabaa. markaana ceebtan waxaa weeye in qofku uu ku mashquulo ceebaha dadka, tiisana uu ilaawo. qofku ceeb buu leeyahay soo maha, ceebtiisii ma arko, tii wuxuu arkaa dadka, ceebihii dadku ka sheekeynaya, ceebuhu dadku faafaaraya, waxyaalihii dadkii khaaska u ahaa buu faafaaraya, waxay ku sifaysanaayeen ee xumaa ayuu iska faafaaraya. cidna uma dirsan, ujeedeed weynna kuma jirto, wax alaala cid weydiisayna ma jirto.
markaana almuhim taas ceebtaa dadku far badana way ku sifaysan yihiin oo meel u bixi maysid ilaa waxaa maqlaysaa qof la caayayo, waxaa maqlaysaa qof la xamanayo, waxaa maqlaysaa qof wax laga sheegayo. haddii 10 qof isku timaado qof lasoo hadal qaado waxaa laga yaabaa 4 qof inay wax ka sheegaan ayaa laga yaabaa. markaana ceebtaasu waxaa la doonayaa in la iska taatiro oo la iska daayo. waxaa lagu daaweyn karaa in awaamirta la qaato, awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala in la qaato. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu la reebay in wax la xanto inaan wax la xaman, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu la reebay dadka ceebooyinkooda in la raraaco inaan la raraacin. almuhim qofku inuu xuduudka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku taagan yahay. taas muhiimadda ugu weyn waa taa. maxaa yeelay ilaahay haddaa ka baqasid wax kastoo xun waa ka fogaanaysaa, oo ceeb kastoo la sheego waxa weeye waad ka cararaysaa. wa inqidaac wa maxabbatu saalixiin, waxaas inaad jirtid qof kastoo ah xumaan ku og tahay u cudurdaar. waxaad tiraahdaa adba xumaan baa leedahay, maxaa qofka kaa galay? waxaad tiraahdaa waxa weeye waa maskiin, weli macnaha waxaa laga yaabaa khalad inuu ku dhacay. u cudurdaar. qofku waa bini aadan. al-insaanu maa sumiya al-insaanu ilaa linisyaanihi. qofka insaan iyo bini aadan laguma magacaabin ilaa nisyaankiisa maahane. waxaad tiraahdaa waxaa laga yaabaa inuu ilowsan yahay, waxaa laga yaabaa inuu ilowsan yahay, waxaa laga yaabaa inay ka dhacday, waxaa laga yaabaa inuunan garanaynba. markaana qofkii u cudurdaar oo qofkaas waxaad tiraahdaa sidaa kama wadin, waxa weeye sidaas muu ahayn. wa maxabbatu saalixiin, iyo dadka wanaagsan inaad jeclaatid. sheekhu dadka wanaagsan inaad jeclaatid mooji wuxuu ugu soo daray anagu ma sheegi karo, laakiinse almuhim waxa wanaag dadka wanaagsan haddaad jeclaatidna dee dadka wanaagsan macnaha waxaan u maleynayaa inuu ka wado dadka wanaagsan haddaad jeclaatid iyaguna wanaagkay kuu sheegayaan oo khayrkay kuu sheegayaan oo wanaaggii baad ka baranaysaa. oo maanta qof wanaagsan haddaad la fariisatid oo aad wax u sheegtid wuxuu ku dhahayaa niyo waxaa iska daa. markaana wuxuu kuu boorinayaa ceebaha dadka xunxun inaad magaranaysaa, ceebahaas inaad ka dabahdid oo aadan ka sheekayn. waxaa kaloo ka faa'iidaysaa qofka wanaagsan dee wanaaggii baad baranaysaa soo maha. markastoo aad xumaan aragto, markastaba haddii aad xumaan aragtid, xilli kastaba haddaad xumaan aragtid, dee qalbigaagii markastaba xumaan baa ka buuxsamayo. waxaadan xumaan ahayn iyo ceeb ahayn ma garanaysid. laakiin haddii aad qof wanaagsan jeclaatid oo aad la saaxiibtid waxa weeye wanaaggii baa dhinaca ka arkaysaa. waxaana ugu daran, waxaana ugu weyn horta marka hore in qofkii aad u ducaysid. xumaan baa ku aragtid u ducee, ilaahay subxaanahu wa tacaala u bari xumaantaa inuu ka reebo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo xanuuniyo. waxaa ugu daran oo aada loogu daaweyn karaa xumaanta adigu aa leedahay waa dadka xumaantooda inaad iska daysid. nabiga sal allahu calayhi wasalam xadiiskiisa aan ku bilowno, man satara calaa akhiihi lmuslim satara allahu cawratahu waman tabaca cawrat. nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu yiri xadiis qaaliya ayaa wuxuu ku leeyahay qofka kale islaamka ee walaalkii astura satara allahu cawratahu, cawradiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asturaya. haddii aa walaalkaa asturtid cawradaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asturaya. waman tatabaca qofka raaraaca cawrata akhiihi muslim, cawrada qofka walaalkiis ee muslimka ah, xataa tatabaca allahu cawratahu, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raaraacayaa cawradiisa ilaa uu ku fadaxeeyo gurigiisa dhexdiisa lagu fadaxeeyo. markaana waa sidaas. qofka walaalkaa ah markaa la kulantid isaga ha ku mashquulin, oo naftiisa ha ku mashquulin, oo cawrooyinkiisa ha ku mashquulin, oo isaga ha baadhbaadhin, oo isaga balaayo iyo inaad isaga noloshiisa ka fakartid iyo inaad hagardaamisid iyo inaad dhibaato u geysatid iyo waxyaalaha adiga laguma dirsan. haddaad samaysid adiga kugu soo noqonaysaa, adiga ay kugu soo noqonaysaa. haddii aad fakarka markaa bilowday oo aad dhamaysay waa wax adiga kugu soo noqonaya. dembigan waxaa u sameynaysaa ama qofka walaalka waxaa u baabaadhaysaa arrimihiisa aadan dan ka lahayn oo aan laguu tirsan oo wax ulajeedaa aanan ka lahayn. waxaa weeye waa
balaayadeedii baa qodaysaa. hamoodin qofka walaalka ah inaa balaayadiisa qodaysid, laakiinse taada ayaa qodaysaa. ama badso ama yarayso. ama qofka walaalkaa ceebihiisa baadhbaadh oo noloshiisa baxar geli oo adduunkiisa ku qabso, ama ha ku qabsan, ama yarayso ama badso. waxa weeye markaa bilowday ilaahay markaa dhamaatay, ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku xisaaminayaa dawaaweyntaada iyo waxaad camal falatay waa lagu xisaaminayaa. hadhowtana adoo adduunka jooga ayaa lagugu abaalmarinayaa aakhiro ka sokow. marka waxan waa wax aan naftaada u sameynaysid. marka hore taafah dad fara badan baana garanayn oo waxay sameynayaan qof bay dhibayaan, qof bay nolosha ku cadibayaan, qof bay iska dabagelayaan, qof aan loo dirsan fadul ayay isa gelayaan. hadhowtana waxay moodayaan inay qofkan wax ku sameynayaan, ma fahansana in iyagii ay meesha ku dhacayaan. asufahaa dad baa jira sufaha la dhaho, sufaho garanba maayaan wax alaale waxay garanayaan. caqli way leeyihiin, wax kasta way leeyihiin, haddana waa safiiho arrimaha meeshii loogu talagalay ma dhigayo. ciduu doona ha ahaato, ilaahay mu weynaado, ilaahay mu dhadig iyo lab midkood ahaado, ilaahay mu qof cilmi la ahaado xitaa hadduu doono. waxaweye safiih waxaana loo dirsan oo fadiishiisa iyo naftiisa ahayn ayuu ku mashquulaa. noloshaaduna haddaad doonaysid noloshaadu inay hagaagto waa intaa ku mashquulsho, weliba wanaageeda aad kaga mashquulsho. haddii aad noloshaada ku mashquulsho waad hagaajisay. laakiin haddii aad noloshaada ka mashquulsho ama wax kale ku mashquul, ama malaayacni ku mashquul, ama khiyaali ku mashquul, ama dhibaato kale ku mashquul, waxa weeye noloshaadii waad xumaysay. haddii aad malaayacni ku mashquulshinna dee naftaadii iyo noloshaadii baa xumaysay oo waqtigiibaa intaa faa'iidaysan lahayd baa khiyaali ku mashquulshay. haddii aad xumaan kale ku mashquulshid, qof walaalkaayo ceebihiisa inaad baabaalid ku mashquulshidna, waxa weeye naftaadiina waa ka mashquulshay, waqtigaagiina waad ku ciyaartay, naftaadiina xumaan ayaa u dhigta. maxaa yeele qofku markuu malaayacniga ku mashquulshan yahay oo iska sheekeynayo iyo markuu qof dhibaateynayo way kala duwan yihiin. sheekadu waa iska mubaax, waa shay bannaan, laakiin mar waliba dee naftaadii waa ka yara mashquulshan tahayo intaas aad sheekeynaysid waxyaalaha malaayacniga ee mubaaxa aad ku mashquulshan tahay ee faraha badan. waxaa laga yaabaa inaad cibaadaysato, inaad quraan akhrisato, inaad cilmi barato, inaad maxaadiro dhegaysato, inaad wanaag dhegaysato. laakiin haddii aad ku darsatid inaad xumaan samayso, qof walaalkaayo ceebihiisa inaad baabaadho aad ku darsatid, waxaa ogaataa naftaadii baad xumaan u dhigta. ka hore ee ah malaayacniga inuu ku mashquulo, isagoo naftiisa xumaan uma dhigin, naftiisa wuu ka mashquulay oo keliya. waxaa laga yaabaa hadhow inuu haleelo, laakiinse adigu markaad doonaysid qof walaalkaayo ceebihiisa inaad qodqodid oo aad ku mashquulshid, waxa weeye naftaadii baa xumaan u dhigtay, maadna hagaajin, waqtigiina waad iska mashquulisay. markaana ilaahay subxaanahu watacaala waa sidaas. nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qofka uu asturo walaalkii ceeb, ilaahay subxaanahu watacaala wuu asturaya. dhammaanteen waxaan rabnaa in ilaahay maalinta yawmal qiyaama iyo adduunkaba inaan la asturo. nacam qof kastaba dembi wuu gelayaa, ceebo wuu qodqodayaa, laakiin waxaa fiican waqtigaaga ama noloshaada inta ugu badan inaad ku dhamaysatid in ceebaha dadka aadan qodqodin. marmar haddaad dembi gashay ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeen, laakiin inaad ku noolaatid oo waqtigaaga gelisid oo ku dhimatid, waxa weeye waa shay adiga ku daran. markaa nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yihi man satara calaa akhiihi lmuslim, qofka astura qofka walaalkii ee muslimkaa, satara allahu cawratahu, ilaahay subxaanahu watacaala wuu asturayaa cawradiisa. qofkii raaraacana ilaahay subxaanahu watacaala ceebihiisa wuu raaraacayaa. qofna lagu diri maayo, ilaahay baa mas-uul ka noqday. ilaahay ayaa mas-uul ka noqday. ilaahay kuumuu oran qofkaas isna wuu ku raaci doonaa. haddii aad qof wax ku samayso isagii baa kuu samayn doonaa, laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kuu yiri anaa ku ceebeynaya. ilaahay miyaa la iska celin karaa? maya, la iskama celin karo. waliba mar aad uga baahi badan tahay in akhlaaqdaada iyo ceebtaada lagu asturo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kaa kala fashilaya. wuxuu ku leeyahay samictu saadaan almadaayini, nin baan ka maqlay buu yiri. nin baa wuxuu yiri nin baan waxaa ka maqlay isagoo leh ra-aytu aqwaaman, waxaan arkay niman ama qoom min annaas dadka ka mid ah, lahum cuyuub, laakiin dadkaasu waxay lahaayeen ceebo ayay lahaayeen.
dad baan arkay ceebo ayay dadkaasu lahaayeen. fasakatuu can cuyuubi nnaas, waxay ka aamuseen ceebihii dadka ayay ka aamuseen oo dadka ceebahoodii miisha sheegin. fasatara allahu cuyuubahum, hadhowtana ilaahay subxaanahu watacaala iyaga ceebahoodii ayuu asturay. hadda waa dad ceebo lahaa oo la arkayo oo ceebahooda macnaha caadi loo arkayo, haddana ilaahay subxaanahu watacaala iyagoo ceebahoodii la arkayo ayuu ceebahooda asturay. waxa weeye waa shay la yaab leh. waa ilaahay waa sidaas. ilaahay subxaanahu watacaala adoo xumaan leh oo soo taagan hadduu ilaahay bilaabo ama uu ku asturo, qof arkaya ma jiraan. adoo soo taagan oo xumaantii leh, qof arkaya ma jiro. wasaalat canhum tilka alcuyuub, hadhowtana ceebahan way suushay. ceebihii dhammaa ay lahaayeen way ka tageenba, ceebihiibaa iska tegay. amaa min afwaahi nnaas, ama waxay ka tageen macnaha dadku ma sheegaan oo qofkii ceeb macnaha aan laga tirtiri karin buu leeyahay, sida qof cawaran oo kale, qof ma garanaysaa indhaha kala jeejeedo oo kale, qof ma garanaysaa dhagaha. adigu makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala siduu abuuray in yaroo naaqisa ku jiro oo ceeb ah, taa layskama tirtiri karo. dee qofkii indhaha kala jeejeeday indhihii iskuma soo jeejeedin karo, ama qofkii cawarnaa indha caadiya ma yeelan karo hadday ceeb tahay. laakiin dadka afkoodii ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ilowsiinayaa, oo dadkii baana ka shakeenayn, oo dadkii baana caayan, oo dadkii baanan aflagaadeenayn, oo dadkii baana sidaa ku dhahayn. ceebihii way ka suuleen. ama qof sifooyin xumaa lahaa, sifooyin xun oo layska dayn karo, qofkaasu sifooyinkii xumaa, dabeecadii xumayd, balaayadii, akhlaaqdii xumayd, markuu ceebaha dadkii u asturay unan qofka waxba ka sheegin, ayuu ilaahay subxaanahu watacaala tii xumayd mid ugu bedelaya. tusaale ahaan qof baa wuu been badan yahay. markuu been badan yahay, qofka dhinacna wuu iska ilaaliya, dhinacna qofka beenta badan iyo dadka beenta badan kama sheekeeyo. hebel wuu been badan yahay waxaas ma dhaho, dadka iskuma diro, balaayadaas ma galo. ilaahay subxaanahu watacaala markuu taa sameeyey wuxuu ku abaalmaray qofkii beenta sheegi jiray, ilaahay wuxuu ka masaxay beentii, wuxuu ugu bedelay run ayuu ugu bedelay. sidaas oo kale ceebihii way ka suuleen. laakiin u fiirso hadalka kale uu leeyahy, wara-aytu aqwaaman, kadib waxaan arkay dad lam takun lahum cuyuub, wax ceeba mayna lahayn, wax ceeba mayna lahaynba. hadhow baa waxay ku mashquuleen ceebihii dadka. fasaarat lahum cuyuub, hadhowtana ceebo ayay lahaayeen. imise qof aad arkaysaa qurux badan oo ilaahay qurux siiyey oo dadka ka sheekeeyey, hadhow markuu yaro weynaaday, markuu qofkii quruxda badnaa, markuu dadka caayay, oo dadka caayay, hebel saas u eegay, hebel waxbaa ka dhiman, tan saas ma ka fumasan iska dhexgalay waxyaalo, qof kasta wax ka sheegay. hadhow markuu yaro weynaaday, ilaahay subxaanahu watacaala ceebo xunxun oo fara badan qofkii u keenay, quruxdiisii wax loo dhamay. imise gabadh qurux badan baa jirta ama jirtay, gabdhaha kale caayay jirtay, taas way foolxun tahay, taas waa sidaa. hadhow markay yaro weynaatay, markay daa'imtay inay gabdhaha kale wax ka sheegto, hadhow quruxdeedii ilaahay subxaanahu watacaala intuu ka bedelay ceebo fara badan u yeelay. imise kafiir waa la arkay. gabdho qurux badan baa jiray oo gabdhaha kale caayi jiray, oo ku dhihi jiray hiblaayo waa sidaa, way foolxun tahay, hadsidan u egtahay, waa sidan habeen iyo maalin, iyadoo is ammaanaysa. hadhow markay yaro weynaatay, ceebooyin fara badan ilaahay subxaanahu watacaala u keenay, hadhowtana quruxdeedii ay naaqus fara badan uu soo gaadhay. marka almuhim waa sidaas. waxa weeye haddii aa ceebo leedahay iyo haddii kaleba, ceebaha dadka iska daa. adna ilaahay subxaanahu watacaala wanaag ayuu kugu bedelayaa. laakiin habeen iyo maalin haddii aa qof ceebtiisa ka sheekaysid, qofuu madow yahay, qofkaasu waa caato wuu dhimanaya, qofkaas wuu cawaran yahay, qofkaas wuu ilaa yahay, qofkaas waa qof maskax yar, qofkaas waa qof sidaas ah, qofkaas waa qof sidaas ah, waa qof sidaas. macnaha ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku kaydinaya, wuu ku biirinaya, hadhowtana wuu
macnaha adiga ceebo fara badan ayuu ku keenaya weligaaba inta doogto adduunka ku nool maalin baa arkaysa adoo dhowr ceebooyin fara badan iska haysta insha allahu tacaala maanta inta haynagu joogo casharkeenu almuhim waxaa weeye cilmiga aynu dhegaysanayno iyo diinta inaynu ku dhaqanno maxaa yeelay faa-iido ayaa inoogu jirta qofkii wanaagga sameyn waayana aakhiruu ka qoomameynaya insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa ka faa-iidaysto diinta iyo cilmiga iyo wanaagga aakhirana kuwa aan ka qoomameyno oo diinta ku camal fala ilaahay haynaga dhigo insha allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.